xabsiyada dunida ugu khatarta badan. Sabaankan aynu joogno ayaa ah mid aan ka marnin waqti walba dil, dulmi iyo xadgudubyo badan. Barnaamijkeena ayaan maanta ku soo qaadan doonaa xabsiyada dunida ugu khatarta badan. Xabsiyadan ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa ugu cabsida iyo halista badan caalamkan aynu joogno. xabsiga Tadmur. xabsigan lagu magacaabo Tadmur waxa uu ku yaalaa dalka Suuriya. Haddaba xabsigan ayaa ka mid noqday xabsiyada ugu dulmiga badan caalamkan aynu joogno. Waxa lagu eedeeyay inuu si qeyr caadi ah u duleeyo maxaabiista ku xidhan. xabsigan ayaa albaabada loo laabay sanadku markuu ahaa 2001 kadib markii uu dulmigiisu batay. Balse 2011 waxa dib u furtay xukuumadda Bashar al-Assad si uu u noqdo mid ka daran sidii uu hore u ahaan jiray. Grandero waa xabsi ku yaala dalka Brazil. xabsigan ayaa waxa uu ka mid yahay xabsiyada ugu khatarta badan caalamka. xabsigan ayaa waxa lagu xasuustaa aafadii ku habsatay sanadku markuu ahaa 1992 kadib markii loo geystay xasuuq ba'an maxaabiistii ku xidhnay xabsigaasi, halkaasi oo lagu dhex dilay 102 maxbuus, iyada oo dilkaasina ay ka dambeeyeen boolisku. sidoo kale maxaabiista xabsigaasi ku xidhan ayaa waxa ay la ildaran yihiin xaalado caafimaad darro. xabsigan ayaa noqday xabsiga koobaad ee ugu khatarta badan caalamka. xabsiga Diyarbakir dalka Turkiga. 1996 ayaa booliska iyo askartii ku sugnayd xabsigaasi waxa ay xadgudub, dil iyo dhaawacba u geysteen maxaabiistii ku jirtay xabsigaasi, iyaga oo dilay 10 maxbuus, dhaawacayna 33 ka mid ah. xabsiga Gedarama waxa uu ku yaalaa dalka Rwanda. xabsigan maxaabiista ku xidhan ayaa waxa lagu qiyaasaa in ay kor u dhaafayaan ilaa 6,000. tiradaasi xad dhaafka ah iyo xaddiga ballaca xabsigaasi oon ahayn mid ku filan maxaabiistaasi intaasi leeg awgeed ayaa maxaabiista badankoodu waqtigooda inta badan waxa ay ku qaataan taagni amba sarajoog, taasi oo sababtay in ay maxaabiista cagaha iyo laguhu qarqarxaan, iyo weliba cudurrada oo si fudud ugu kala goosha maxaabiista dhexdooda. xabsiga La Sabanita Venezuela. xabsiga La Sabanita cadadka maxaabiista ku xidhan waxa ay kor u dhaafayaan ilaa 16,000 oo qof. xabsigan ayaa waxa uu ku caan noqday dhacdooyin dhiigaysan oo muddo sanado badan ah dhexdiisa ka jiray. sanadku markuu ahaa 1994 ayaa maxaabiis 100 qof kor u dhaafaysa waxa lagu dhexlaayay xabsigaasi dhexdeeda. sanadii ku xigtay ayaa iyadana sidoo kale waxa la laayay ilaa 196 qof oo maxbuus. sidoo kalena waxa la dhaawacay 624 qof oo ka mid ah maxaabiistaasi. xabsiga Alcatraz waxa uu ku yaalaa dalka Mareykanka. xabsiga Alcatraz waa mid ka mid ah xabsiyada ugu caansan dunida, isagoo xataa taariikh xumadii uu soo maray laga sameeyay filimaan badan. xabsigan ayaa albaabada loo laabay sanadu markay ahayd 1983 kadib markay kor u kacday xadgudubka iyo sumcad xumadiisu. waxa uuna ka mid noqday haatan meelaha ugu muhiimsan ee loo dalxiis tago California. xabsiga San Quentin. xabsiganina sidoo kale waxa uu ku yaalaa dalka Mareykanka. xabsiga San Quentin waa xabsiga ugu qadiimsan gobolka California, waxaana la aasaasay sanadu markay ahayd 1852. maxaabiista dilka lagu xukumay ee ku xidhnaa xabsigaasi ayaa waxa lagu duri jiray cirbado sumaysan. waxa uu soo maray xabsigani dhacdooyin aad u foolxun. dhacdooyinkaasi madow ee uu xabsigani soo maray tiisii ugu dambeysay waxay dhacday 2006. xabsigaasi gudihiisa ayaa sanadu markay ahayd 2006 waxa lagu dhaxdhaawacay tiro gaaraysa ilaa 100 qof oo maxbuus. xagga laga dilay 2 ka mid ah maxaabiistaasi sababa arrimo cunsuriyadeed awgeed. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan ha moogaanina inaad channelkeena